diyaaradda Uganda ee maanta markii ugu horeysay soocaga dhigatay airportka magaalada Muqdisho ayaa ugu horeyn waxaa soo dhaweyn lagu sameeyay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyadoona intaasi kadib ay diyaaradda ka soo dageen mas'uuliyiin la socotay diyaaradani Uganda Air oo iyagu ka soo raacay dalkaasi Uganda kuwaas oo ka qayb galaya munaasabad diyaaradani lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan airportka magaalada Muqdisho munaasabadan lagu daafurayay diyaaraddan Uganda Air oo iyadu si toos ah isaga kala gooshi doonto Uganda iyo Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay wasiirka wasaaradda warfaafinta boostada isgaarsiinta iyo gaadiidka Cabdullaahi Cilmooga Xirsi iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan mas'uuliyiintii la socotay diyaaraddan oo iyagu ka hadlay munaasabada lagu daafurayay diyaaraddan Uganda Air oo iyadu gudaha magaalada Muqdisho ka bilowday duulimaadyo cusub oo ay isaga kala gooshayso Muqdisho iyo Kampala ayaa waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in qad cusub ay ka bilaabaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Uganda as a country and Somalia as a country, and for Air Uganda, because when I came here 1.5 years ago to do the research to land here, we were welcomed. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa isagu soo dhaweeyay in diyaaraddan ay ka bilowdo duulimaadyada magaalada Muqdisho. aad ugu xumayn waxa dadka Soomaalida passengerska ka baxay Muqdisho ee Nairobi aadahaya waqtiga looga dhumiyo 3 hours wajeer la fariisiyo la fitisho haddana markii Nairobi la tago haddana segregation lagu sameeyo marka route-kan anagu waan soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay route-kan wuxuu naga qaadanayaa 3 hours buu naga qaadanayaa 2 hours oo ah Kampala iyo 1 hour to Nairobi 3 hours ugu dambeyn ayaa wasiirka warfaafinta boostada isgaarsiinta iyo gaadiidka xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Cilmooga Xirsi uu sheegay in diyaaraddan aysan ku ekaanin kaliya duulimaadyada maalintii ay ku darto duulimaadyada habeenkii hase ahaatee waxaa Home Cable TV ay weydiisay wasiirka sida ay ku suurtagali karto in diyaaraddani habeen iyo maalin ay shaqeyso iyadoo la og yahay in garoonka diyaaradaha Muqdisho aysan u dhameystirneen qalabka adeega looga baahan yahay in ay ku shaqeeyo airportka Muqdisho oo ay kamid tahay nalalka habeenkii ah nafudata aytaankeeni meelaha kale duwan East Africa aan aadi jirnay dibadihii connection ka aanu aadi jirnay waa in diyaaradii toos u yimaadaan wadanka waa in habeen la shaqeeyo waa in ay korto dakhliga dawladda soo gaaro su'aalaad fiican waxyaalahaas oo dhan inaga inoo taala waad ogtihiin hadda xukuumaddan intaan joognay inta hawl qabsoontay waad ogtihiin qof walba oo inaga ah oo aad ka mid tahayna waxa laga rabaa meesha ku aadan inuu ka soo baxo nalalkaas waa kuwaan rabnaa inaan dhaqaajino duulimaadyadan Air Uganda ay ka bilowday gudaha dalka Soomaaliya iyaguna ugu kala gooshi doonta Soomaaliya iyo Uganda ayaa waxay faa'iido u tahay dadka Soomaaliyeed kuwaas oo xilliyadii hore transit ku mari jiray dalkaasi Kenya iyadoona saacado fara badan ay joogi jireen airportka dalkaasi Kenya Cabdirasaaq Miro Home Cable TV Muqdisho.